nolosha qofka markuu uu asaga uu mustaqiim yahay markuu toosan yahay oo siraatal mustaqiimka uu ku toosan yahay siraatal mustaqiimka Ilaahay uu sheegay markuu qofku ku toosan yahay meeshaas ka bilaabataa nolosha iyo najaaxeeda iyo guusheeda meeshaas ka bilaabataa qofka laakiin hadii uu siraatal mustaqiimki Ilaahay uu faray uusan ku toosnayn hadduu alkoolista noqdo hadduu khamri cab noqdo haddii fasq uu ka shaqeeyo hadduu daroogo isticmaalo yani qofkaas waa fashil laakiin qofka markuu cibaadada Ilaahay ka tago oo Ilaahay ku caasiyo oo wuxuu Ilaahay xarimo dhan uu sameeyo oo wuxuu Ilaahay farayna uu safartoomaynin qofkaasi fashil u dhiman ma jiro oo fashil buu yani waxa isdiiday moogtahay damiirkiisa iyo wuxuu rumaysan yahay iyo asaga imtixaan ku jira waxaan uu sameeynayo maadaama muslim yahay wuxuu rumaysan yahay inay khalad yihiin soo najax dadka xishoon wax adiga hadduu xishoodka ka tago marka sidaadaba qofka markuu akhlaaq wanaagsan leeyahay akhlaaqda waxa kamid ah xishoodka waxa kamid ah runta beenta oo laga dheeraada kamid ah dulmiga oo la nacbaada kamid ah gardarrada oo la nacbaada kamid marka qofka markuu nolosha uu galaayo nolosha uu tacliin galaayo waa wada dheer wadaas dheer waxay u baahan tahay akhlaaq iyo dhaqan iyo ijtihaad ay u baahan tahay waxyaabaha lagu barto yani waxbarashada amto waata dugsiga ku soo marteen amba hadda jaamacadaha ku dhigateen waxbarashada rasmiga waa midaas laakiin seminaarada noocan oo kaleenta ah ayadana door muhiim ah oo aan ka leedinin midaas iskuulaadka lagu qaato ama jaamacadaha lagu qaato ay leeyihiin sababtoo ah waxyaabihii aad jaamacadaha ku baratay ama iskuulaadka ku soo baratay oo baahsanay bay seminaaradu ku soo aruurinayaan waxba isku ka toosinayaan waxaad mar qaarkood waxaad maqashiin qof dhan oo seminar 2 maalmood ama 3 maalmood ama hal asbuuc ah diyaarad wadankan u raacay diyaarado raaca yani waxa laga yaabaa inuu aado Europe ama meel kamid ah ama Africa ama meesha doonta ahaato seminarku dhan waxa laga yaabaa 3 maalmood 2 maalmood inuu yahay labadaas maalmood 3 maalmood marka in kharashkaas lagu bixiyo macnaheedu waxa waaye يعني وحي أتقاني بالسكات توسنا السكا أرورنا والوجهينيا مركز مناردان أو كلامته وحي جهيان قفك مستقبل كيسة يقفك تجاهي سي جهيان حدي سيداس تهي أو قفك الرب قف يونيكا نين لا غرانايو غورغودا لا غرانايو حافظودا لا غرانايو جامعada laga garanayo soo waxaad fahanteen maaha mujtamaca Soomaalida hadhow laga garto Muqdisho hadhow laga garto hebel markii la dhaho aan lagu khalkhaldamin hebel markii la dhaho hatta aaba aan u baahaneen in lagu daro shuruud yar baa loo baahan yahay shuruudaas intii badan horta waxa sheegay wadaadkii meeshan iyo labadanba way sheegeen oo waxa weeyaan edeb akhlaaq run dadaal warkayga maqlaysaa adiga markaad rabto inaad xaflad aadid wiiga ka hor horta soo dharka ma sii dhaqanaysid haddaad ku cusub baad soo gadaninba soo saas maaha qofka aad rabto inaad noqoto waa inaad u sii diyaar garowdaa oo macnaheedu loola jeedo wada xaajoodka ama gorgortanka iyo saamaynta dadka يعني dadka inaad saamayso influence skills dadka sidee ku saameynaysa qaacido waxa jirta dhahaysa oo leeyahay nin khabiir ah oo caan ah oo leeyahay nolosha ma helaysid what you deserve macnaheedu waxa loola jeedaa waxaad u qaranta nolosha ma helaysid laakiin maxaad helaysaa what you negotiate oo macnaheedu loola jeedo waxa ka gorgortanto ama ka xaajooto ama aad soo dhacsato idan waxay ku xiran tahay dadka saa u saameey dabcan skills fara badan iyo technique fara badan iyo waxa ku qaadan doontaan iyo kaartooyin laakiin kaartooyinkaas in dadka lagu siro ma rabaya dadka waxaan rabaa in lagu siro loo isticmaalo bis qaab positive laakiin kaartooyina baran doonta ma kaartooyin okay soo macnaha ayaa ku baran doontaa negotiation-ka laakiin dadka aad ku saameynaysaa that is strategic wuxuu kamid yahay xirfadda lixaad ee aad ka muhiimku ah waa ku baran doontaa skillkaas strategic plan waliba waxay kamid tahay strategic plan-ka skillska 2021 2022 qobrada caalamka adduunka ay kula taliyeen dhalinyarada iyo dadka raba inay adduunka noqdaan hogaamiyaal dadka wax ka bedela inay bartaan ay kamid tahay runtii waxyaalaha kale oo ku baran doonto waxa kamid ah xirfadda guusha nolosha uu ka caawinayo ina hadii ay ku adag tahay ina ka hor hadashid dad badan ka hor hadashid runtii aad ay ku caawinayso waxa loo sii doonaa techniques iyo farsamooyin strategies ka caawiya in aad gaarto Aamina Cali Cusmaan ahna difacadii idinka horeysay ee meeshan ka qalin jibisay oo faa'iido badan ka heshay meeshan ani ahaata marka imaanay meeshan waxa dadkii aaminsanaa xikmadda meeshan ku qoran waxa judge yourself and aaminsanaa in dunida bedel bis aad yar waxa inaan isbedel marwin barnaamijka marka qaatay waxa fahmay intaadana
wax dunida bedelin inay tahay nafsadaada inaad bedeshid wallahi bila barnaamijkan hadda dhaho ku soo galo 2 daqiiqo 3 daqiiqo haysta wax aan ka hadli karo ku soo koobi karo maaha waxa ka faa'iido difacada anagana qalbiyada dad waxa ka soo baxeen arday abwaana dad waxa ka soo baxeen qoraayaal writing-ka oo xiskiilo aad ku anfacaya lagu bixinaya barnaamijkan ani ahaan markii loo dadka macaamilkooda waa isku fiicnaa saasata laakiin qofka shakhsiyadiisa dadka qaarna la xiriir ugu dhibnaay ay u adkaa jirtay waxa bartay qofka shakhsiyadiisa inaa fahmo oo maanta dad ani asxaabta kamid ah oo marba isku dhici jirnay waxa isku dhici jirnay ay tahay dabeecadooda personality-gooda kala bedelnaa personality-gooda fahmo hadda caqabad uma noqdaan qof walba waa xali kara aniga oo magacaygu yahay Yunis Cabdiraxmaan Cabdullaahi maanta waa maalin farxad weyn igu leh waxaan ugu soo biiray akademiyada Hagaag anoo ka qayb galaya dufcadii labaad oo ka qayb galaysa barnaamijka horumarinta xirfadaha guusha nolosha marka waxaan ugu soo biiray akademiyada inaan noloshayda wax ka badala aan horumar weyn ku soo biiriyay noloshayda sidaas awgeed ayaan ugu soo biiray barnaamijkan insha Allah waxaan ka rajaynayaa inuu hadafkayga ii rumeeyo wabillahi tawfiiq. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi